Mr. President, did he agree to denuclearize first? waa taariikhda markii horeysay ay kulmaan laba hogaamiye oo ka soo jeeda Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi balse labadan hogaamiye ee Kim iyo Trump ayaa waxay jabiyeen darbi adkaa oo u dhaxeeyay labada dal kaasi oo mararka qaar dhalin karayay dagaal culus waxay kulan salaana ku yeesheen labada hogaamiye ka hor intaan u dhicin kulanka rasmiga hodeel ku yaala jasiirad loo dalxiis tago oo lagu magacaabo Sentosa oo ku taala dalkaasi Singapore kadib salaanta kulan qaatay 45 daqiiqo ayaa waxa isku hor fadhiisteen labada hogaamiye iyadoo ay ka soo bixeen shirkaasi 4 qodob oo ay kamid ahaayeen in Kuuriyada Waqooyi ay gabi ahaanba baabiso goobaheeda ay ku sameeyso hubka loo yaqaan nuclear-ka iyo sidoo kale inay joojiso horumarinta hubka nuclear-ka iyo sidoo kale in Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya ay bilaabaan heshiis ay ku nabadeynayeen gacanka Kuuriyada shirka kadib labada hogaamiye ayaa si wada jir ula hadlay warbaahinta ugu horeyn Trump ayaa hadalka ku horeeyay waxaana uu yiri You'll be seeing everything in just a little while. dabcan waad arki doontaan wax yar kadib warqadahani aan saxaxnay waa kuwa dhameystiran waxaan filayaa in labada dhinacba ay ku qanci doonaan natiijada rajo wanaagsan ayaa noo muuqata iyo shaqo badan waan u mahadnaqaynaa cid kastoo ka qayb qaadatay labada dhinacba iyo sidoo kale Pompeo wasiirkayga arrimaha dibadda ee Mareykanka Secretary Pompeo and all of his counterparts, they were absolutely fantastic. sidoo kale Kim ayaa dhankiisa waxa uu yiri waxaan wada yeelanay kulan taariikhi ah waxaan wada go'aansanay in la iska dhaafo wixii hore waxaan wada saxaxnay afgarad hordhaca adduunkuna waxa uu arki doonaa isbedel la arki karo waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa Mr. Trump oo suurta geliyay in kulankani dhaco Thank you very much. intaasi kadib labada hogaamiye ayaa munaasabad qada ah waxay ku yeesheen jasiiradaasi uu ka dhacayay kulanku waxaana qadada ku weelinayay ufuud ka kala socota labada dhinac xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo goor dhaweyd ku qabtay shir jiraayid xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa waxa uu ku tilmaamay kulanka dhexmaray labada hogaamiye mid taariikhi ah waxaana uu yiri Today a bit of good news. I want to address a promising development for global peace and security. maanta waxaan sheegi doonaa war wanaagsan waxaan doonayaa inaan ka hadlo guul soo yeetay caalamka gaar ahaan dhanka ammaanka adduunyadu waxay si dhow u daawanaysay wixii ka dhacayay Singapore saacado ka hor waxaan u sheegayaa hogaamiyaasha labada dal inay xoojiyaan halka diblomaasiyadda waxaana mahadnaq leh cid kastoo ka qayb qaadatay kulankan muhiimka ah And I also thank all those who contributed to creating the conditions for this key moment. waxaa haatan bilo laga jooga markii labada hogaamiye ee Donald Trump iyo Kim Jong Un ay dacaayado iyo hanjabaado isu marinayeen warbaahinta caalamka dhanka kale madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in Kim Jong Un uu ku casuumi doono aqalka cad ee Mareykanka waa haday suurto gashay Mr. Kim, would you like to come to Washington? Thank you. Thank you, everyone. Kim, would you like to